kolonyo gaadiid oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM ayaa waxaa qarax miino lagula eegtay barqanamadii maanta agagaarka masaajidka Turkiga oo ku yaala wadada u dhaxaysa isgoyska Fagax iyo xaafadda Jamhuuriya ee magaalada Muqdisho. Ciidamada qarax la eegtay ayaa waxaa la sheegay in ay sahay ay u wadeen ciidamo kale oo ka tirsan AMISOM kuwaas oo ku sugan degmada Hiilwaa ee gobolka Banaadir. Waxaana la sheegay qarax kadib in ciidamada AMISOM ay fureen rasaas xoogan. Dad goobjoogayaal oo ku sugan goobta qarax uu ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in rasaas badan ay fureen ciidamada AMISOM ay ku geeriyoodeen wada gaari dameer haweeney rasaasta ay ugu tagtay gurigeeda. Sidoo kale rasaasta ay fureen AMISOM ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 6 qof oo shacab ah. Ciidamada AMISOM ayaa qarax kadib muddo saacadaha hakad geliyay isku socodka dadka iyo gaadiidka wadada u dhaxaysa isgoyska Fagax iyo xaafadda Jamhuuriya degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. walow markii dambe ay dib u fureen wadadaasi weli ma jirto ila xaqiijin karta khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray ciidamada AMISOM ee qarax lagula eegtay nawaaxiga isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho. Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa marin ay u ahayd wadada jayga ah ee hormarta masaajidka Turkiga xaafadda Jamhuuriya degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho maadaama biyo fara badan ay xireen wadada laamiga ah ee marta isgoyska Fagax degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Xilli maalmihii ugu dambeeyay robab mahiigaan ay ka da'ayeen magaalada Muqdisho ayaa waxaa ciriiri galay wadooyinka qabdajeexa ee hormara xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Ciidamada AMISOM ayaa marka qarax ceenkan la eegto waxa rasaas xoogan ay ku furaan dadka hadba meesha ka dhow isla markaana khasaare ka soo gaarta. AMISOM ahaan markii ugu horeysay oo dad shacab ah ee rasaas ay husho kadib markii dhawaan qarax ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha degmada Hiilwaa ee magaalada Muqdisho ay ku dishay ku dhawaad 6 ruux halka 10 kalena ay ku dhaawacday.